goboleedka igad ee maanta la soo gabagabeeyay ayaa muddadii uu socday waxaa looga hadlay sidii loo hormarin lahaa ganacsiga wadamadan gobolka Geeska Afrika ganacsigaasi oo ah kan ay wadaagaan dalalkaasi iyo waliba kan kala dhaxaya dunida inteeda kale xiritaanka shirkaasi kadib ayaa wufuudii shirkaasi ka qayb qaadanaysay waxaa lagu soo wareejiyay dekadaha dalkani Djibouti dekadii hore ee dalkani Djibouti iyo waliba dekada Dooraale loo yaqaano iyo aaga canshuuraha ka caagan ee Freesonka wufuudda ayaa soo indhaysay dekadahaasi iyo qalabka casriga ee yaala iyo sida ay u shaqeynayaan intii wufuuddu ay ku guda jireen booqashadooda ayaa Cabdi Abshir Dhoore oo kamid ah mas'uuliyiintii ka socday rugta ganacsiga ee Soomaaliya waxa uu saxaafadda faahfaahin ka siiyay waxyaabihii shirkaasi la isku soo qaaday aad iyo aad baan runtii labadan maalmood shaqo fara badan u qabanay wax badan uga faa'iidnay waa markii labaad oo IGAD Business Summit ay Chamber of Commerce ka soo qayb galayaan Soomaalidu xaqiiqadii waxa weeye ugu dambeyn markii la fiirshay shirkii wixii ka soo baxay waxyaalaha ugu muhiimsanaa waxa ay ahayd in IGAD Business Summit hadda kadib ay sameyn doonto kulamo badan 3 bil mar 6 bil mar isla markaasna wadan walba lagu qaban doono kulamadaas lagu qaban doono waxa kale oo ka soo baxo aad faa'iido u leh in mushkilad badan ay ka taagneed marka la galayo heshiisyada caalamiga ah in aysan jirin regionkuna uusan lahayn maxkamad la isku raacsan oo ganacsiga kala ilaalin karta arrinkaasna hadda waxa way faa'iido cusub soo kordhay oo maanta la saxiixay oo Bresco oo sii deyn doono waxa wad u jeedaan dekada Djibouti oo maanta saacad iyo bar dhexdeeda lagu socday halkan aan taagano container center-ka ah waxa way xaqiiqdii waa wax cashar ay ummadda Soomaaliyeed ay ka baran karto dekada Berbera dekada Boosaaso tan Muqdisho mid Kismaayo inaan cashar lama ilaawana ka barano waay wadankanaga waad ogtihiin baaxadda badweynta oo haysto Djibouti oo bad yar haysata ba waxaana howla runtii qabsatay kadibna xarunta rugta ganacsiga ee dalka Djibouti ayay heshiis ku kala saxiixdeen ganacsatadan ka kala socotay wadamada urur goboleedka IGAD heshiiskaasi oo ah sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen xarumaha ganacsi ee IGAD sida uu faahfaahinayo gudoomiyaha rugta ganacsiga ee dalka Djibouti Yuusuf Muuse Dawaale bismillaahir rahmaanir rahiim waxa horta farxad la waxa weeyaan walaalihiina xagan jooga ee na soo sharafeynay maadaama shirkan ka soo qayb galaan wadanadii IGAD Chamber of Commerce weeyaan waxa labada cisho ka xaajoonaynaa marka sheekaysadna waxay ahayd arrimaha dan u ah horumarka iyo dhaqaalaha isdhex socodkiisa sida wadanada IGAD ay u hirgelin lahaayeen waxaan ilaahay ka baryaynaa in arrimahaas oo dhan staan kulkaan u dhignay ugu final resolution-kii aan saxeexnay wuxuu ahaa in ay wadanadu wada shaqeeyaan imika waxa aan kala saxeexnay waxa weeyaan wadan kastaba Chamber of Commerce waa wadanka la shaqeeyo uu hirgeliyo mashruuc labada wadan uu specific u ah ka IGADna resolution waana ku marin hadeerto waa taamudno aan leenahay arbitration center-ku waa inay jirto di Soomaaliya Muqdisho aan lacag gashadoon ka waayo de ninka xagan ka ashkateynay wuxuu noqonayaa arbitration center-ka hadduu ninka Soomaaliga Djibouti wax gashado de xagu ku ashkateynay wax gan Kenya waa sidaas leed inta wadana IGAD ka koobani waxay leedahay meel ay murmahooga lagu kala gar qaadi karo Axmed Cabdi Kariim Maxamed Universal TV Djibouti